walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxay diideen in dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ay duulaan qaawan ku qaado dad kamid ah ummadda Soomaaliyeed dawlad goboleed kamid ah ummadda Soomaaliyeed oo dastuurku ogol yahay inay qabsadaan kuna dhaqmaan shuruucda ayagu ay degsadeen reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladda Koonfur Galbeed waxay idin leedahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaaba kuwii nala soo dhafray kuwii noo tacsiyeynayay dibka naloo geysanayay kuwii aragtida qurxoona siinayay kuwa talooyinkana siinayay dhammaantiin reer Koonfur Galbeed iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin waxaan halkan ku soo gaaray taageeradiina waxaan halkan ku soo gaaray garab istaagiina waxaan dawlad ku dhisanay tusaalooyinkii aadna siinayseen markaad aragteen gardarada qaawan ee lagu soo qaaday shacbiga reer Koonfur Galbeed jiritaankooda dawladnimo iyo midnimadoodaba sidoo kale dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay rabtaa inay dadka Soomaaliyeed u sheegto tusaalooyinkii la soo dhaafay inay ogaadaan oo ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee loo aasaasay guud ahaanba inay difaacaan dalkeena qarannimadiisa gaar ahaan la dagaalanka ururka al-shabaab waxaan ogsoonahay in dawlad goboleedka Jubbaland horay loogu adeegsaday duulaan lagu burburinayo jiritaankooda reer Jubbaland iyo dawladoodaba iyadoo loo adeegsanayo inamadii Soomaaliyeed oo loo carbiyay inay cadawga ka difaacaan dalkan qoryahana loogu dhiibay reer Jubbaland inay isku laayaan waxa ka dhashay halka khasaaro weyn oo ilaa haatanba tabashadeedu ay taagan tahay hooyooyin badan ay ku gablameen dagaalkii ka dhacay Jubbaland ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ku qaaday taasoo kale maanta ciidamadii qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa naloo adeegsaday iyagoo noocyo kala duwan leh gaar ahaanba waxa si gooni ah loo soo xulay shakhsiyaadkii ama ciidamada dadkii ka dhashay Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamada qaranka ku jiray ayaa inta si gooni ah loo soo xulay si gooni ah loo soo bixiyay la yiri waa inaad deegaanadiina tagtaan la dagaalantaan dadkiina dawladnimadiina aad burburisaan aad baan uga xunnahay in ciidamadii qaranka iyaga laftooda la kala furfuro qoys iyo jilib loo kala furfuro iyo dawlad goboleedba dabadeetana dadkiina soo xasuuqa la yiraahdo waxaan u baaqaynaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed haday tahay kuwa sida la sheegayba ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ciidamada kala duwan ku jira iyo haday tahay kuwa kale Soomaaliyeedba walaalayaal waxa la isku haystay ma ahayn duulaan qoriye waxay ahayd doorasho reer Koonfur Galbeed Soomaaliyana iyagoo xiganaya dastuurkooda jiritaankooda iyo midnimadooda waxay qabsadeen doorasho waxa la idinku soo khalday waxay ahayd doorashada reer Koonfur Galbeed qabanayaan inta aanay qabanin inaad ka hortagtaan oo dawladnimadii Koonfur Galbeed ala dagaalantaan waxaan idin leenahay walaalayaal haday aragtidu sida ahayd waa laga soo gudbay reer Koonfur Galbeed doorashadooda waa qabsadeen wixii siyaasadana waxa ka wada hadli doona cid ay khusayso ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayagu ma khusayso inay qaataan amar khaldan ee walaalayaal waxaan leenahay kuwa laga soo diray Muqdisho laga soo aruuriyay Waajid laga soo aruuriyay Xudur sidoo kalena meelo kala duwan waxaan leenahay walaalayaal hadaa doorasho la yiri ka hortaga dadka reer Koonfur Galbeed iyo madaxdooda iyaynan doorasho qabsanin doorashadii shalay tay dhacday 28kii hadii ujeedku ahaa doorasho waxaan rabnaa inaad qoryaha dhigtaan oo aad diidaan amaradaas khaldan waxaan uga xunnahay in wiilasheenii la khalday buruxakaba iyo daynuunay inta u dhaxayso ay cadawgii al-shabaab dhibaato badan ku hayaan qaarkoodna ay dhinteen oo ognahay qaraxyana loo dhigay aad baan uga xunnahay wixii dhacay walaalayaal waxaan leenahay dalkan aad leedihiin dal kale ma leeyihiin doorashadii mar haday dhacday waa inaad qoryaha dhigtaan oo aad dadkiina iyo umadiina aad nabadda kala shaqaysaan waxaan si gaar ah oo la hadlayaa dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo ku jira ciidamada kala duwan oo la yiri baxa qoryaha qaata hooyada soo dil walaasha soo dil abtiga iyo adeerkaaba soo dil war way idinka khaldan tahay dalku waa federaal hadaa tahay qaran iyo hadaa tahayba dawlad goboleedba dalkanaad leedihiin Puntland dadkeeda iska leh Jubbaland dadkeeda iska leh galmudug iyo Hirshabeelle sidoo kale banaadir umad kala sheegatay dhiga qoryaha dawladdu waxay idinku baaqaysaa inaad u timaadaan dawladdiina inaad u timaadaan shacabkiina inaad qoryaha dhigtaan ammaanka aad furteen xirtaan af buuxay idinku soo dhaweynaysaa dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale walaalayaal waxaan si guud ugu baaqaynaa dadka reer Koonfur Galbeed meel kasto ay joogaanba hiiladiina waan aragnay dawladdu waxay idinku baaqaysaa waxay fidin doontaa gobol baaqa oo nabadeed ay isugu imaanayaan dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladnimada maanta aan haysanno sidii hore loogu sii wadi lahaa waxyaabaha yar oo dhaxdeena ahna aan isaga xalin lahayn waxa jirto erey maaya oo oranayo wal koraad hoob kooyaan walase wallaabe walase waliyo tarayaan maleh wal koraad la iska haysada jiritaankiin dawladnimadii ummadeedu wala la siin kala dagaalamay dadka reer Koonfur Galbeed dhamaantii wali lahaa baroortu orgiga ka weyn hadii wala la iska haysidii doorasho haytay reer Koonfur Galbeed qabsadeen doorashadiyo madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareenga shalay la dooradii
ay la san khaladnay dalkale milihidiin wala la diidinay jiritaankiin ahaayeen midnimada ahayti in isin dadnaga taano dadka Soomaaliyeed asaagiin ee baal suruntaan talada dalka walka walataan waana talidaan la siin diidinay mar lamaad mar saddexaad walisan lana wala lanjeedi Cabdilcasiis mahayna wala lanjeedi dawladnimada koonfur galbeed mahayna wala lanjeedi wali hayna jiritaankiin umadeed iyo noytay in isin dadka ku damboytan yahay walaalahay saaxiibada siyaasiyiinta reer koonfur galbeed oo buuraanka ka sugan walaalayaal da aan ku xugna inuu geeka aragna safiir garuwadada inuu aragna wasiir garuwadada inuu aragna xildhibaan garuwadada oo aglaga iyo noytay fakirka iyo ka shaqeeyaan iyo Allah hayna oo la riwariya goriida gaadada bahadadkiin habaabiya bahadadkiin hadila bahad dawladnimadii isin sharaftaha ka waalda dib in burburiya war aana beeloshin walaaga isin shalay sharaftan iyo karaamadan ka waaldateen hoob isin geeki dib hankanaga taano burburidaan bariyay intee ka koodasan intee ka dareerasan warsiin ku halaawti reer koonfur galbeed doorashadii qobsadeen madaxweyne Cabdilcasiis la dooradii shalay u siisin heeli badi tolkiin sindeeri badi tolkiin sindidi waltaran inisin walba antarana ogaadeen tolkiin sidiideen madaxweynaha waliyaray warhan dalka bahan shaqeeyana tan hoob wal ku gobadan tan koraan wal ku gobadeen xaasha lillahi sidii la siin kamaali man kallasna reer koonfur galbeed Soomaaliya taariikhdu wala qoro doonta yaa bas abtugu doonta dalkan dad badan dawladnimo kasta oo la balaaw in ma jahaabiyaan iska deeyeen asiina taariikh huma siin qorantay dalkan aan ilaalatin wala dhidiyana dawladda latina dawladda in kooy wada hadal dawladda diyaarangata meel kasto la roogo mar lamaad mar saddexaad dadka reer Baydhabo iyo dadka reer koonfur galbeed wali lana dajiye qalbiyadii in dhageysanteen barbogandada in dhageysanteen haan war xumata shilka dawladda latin waan kasta oo dawladdiin siin deerta kaasa wali signaga horumar iyo barwaaga waxa kale oo aad uga xunnahay oo aan sheegaynaa 1988 bay ahayd markii magaalada Hargeysa inta laga kiciyay garoonkeeda lagu baabi'iyay dadkii Soomaaliyeed ee markaa joogay jiritaankooda lagu baabi'iyay reer Hargeysana lagu baabi'iyay walaalaha reer Somaliland waxaan goob joog u nahay maanta oo ay sanadka uu yahay 2026 dawladda Soomaaliyeed inay u adeegsato diyaaradihii qaranka ee loogu talagalay inay dalkan ka difaacaan cadawga gudaha iyo kan banaankaba waxaan arkaynaa in loo adeegsaday dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya lana rabo in lagu gumaado lagana kiciyo burxakaba iyo balidoogle lana rabo in dadka reer Soomaaliya reer koonfur galbeed lagu duqeeyo walaalayaal waa ayaan daro weyn diyaaradihii qaranka u lahaa in dib inta loo soo kiciyo lagu abaabulo dadka reer koonfur galbeed ciidamo lagu daabulo madaafiic lagu soo raro la yiraahdo ku duqeeyo magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka koonfur galbeed Soomaaliya dadka Soomaaliyeed waa inay taariikhda wax ka bartaan 88kii wax xasuusanayaan reer Somaliland annaguna haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaan xasuusanaynaa wixii maalmahan dawladda federaalku ay ka samaynaysay koonfur galbeed oo ahaa in ciidamadii qaranka ay soo kiciso oo ay rabto inay ku baabi'iso shacbiga iyo dawladda koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si adag uga digaysaa una sheegaysaa walaalaha iyo dawladda Turkiga in la isticmaalayo droonkii aad ku caawiseen dadka Soomaaliyeed oo ah inay si toos ah ula dagaalamaan argagixisada al-shabaab iyo Daesh waxaan arkaynaa maanta inay dul taagan yihiin ilaa 200 oo diyaaradood oo bayriqdaar ah iyo kuwa lamida inay dul heehaabayaan hawada koonfur galbeed Soomaaliya si la rabo in lagu baabi'iyo dadka reer koonfur galbeed dawladda koonfur galbeed shacbigeedu waxay leeyihiin walaalaha iyo Turkiga arintaas iyaysan boog idin kugu noqonin waxaad u siiseen hubkaas iyo diyaaradahaas iyo dabaabaadkan haddaba la rabo in dadka lagu laayo waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ay shabaab kala dagaalamaan laakiin ma ahayn in dib loogu soo laabto shacbiga reer koonfur galbeed Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin walaalayaal meel kastoo joogtaanba guuli gobonnimo idin dhaafaynaa koonfur galbeed ha guulaysato dadka reer koonfur galbeed meel walba joogaan waxa leena guulaysta walaalayaal